السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله يوم ميلا جوكتان بوايد سلامي مسج كان وحن أوتلا قاتك إنان كجاه الله. سوماليا سيدا دوكسونتهين هذا الديار دي هو نوع تاريهين قاد كينا الحمد لله ولجوك سدي هل كاسا وحن روا مناسبات إنان واحد له horta intaanan ka hadlin joojintiisa iyo wadidiisa waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatooyinka qaadku uu leeyahay fardiga iyo qofka uu leeyahay shacabka iyo dadweynaha uu leeyahay kow wuxuu ka qayb qaataa waxa la yiraahdo inuusan qofku shaqaysanin qofku wuxuu raadinayaa mutca oo ah inuu naftiisa saacado kaliya u raaxeeyo kadibna caawa dhan wuu soo jeedayaa kadibna berri hadduu shaqayn jirayna wuu ka daahi haddii kalena maba kacaya halkaasuu jiifaya marka inay dadkii noqdaan wada shaqo la'aan buu qayb ka qaataa waa marka labaad wuxuu hoos u dhigayaa wax soo saarka iyo camalka iyo shaqada nin caawa dhan qaad u fadhiyay wax ma soo saari karaa iyadana bulshadaas iyo wadankaasba markaas wuu la harayaa wax soo saarkiisa waa arrinta saddexaad faqriga iyo saboolnimadana qayb buu ka qaataa qofkii wax yar helaa wuxuu la aaday inuu qaad ku gato walidaalika baad arkaysaan suuqaqa boqolaal deymo loo haysto oo gabdhihii qaadka gadi jiray ay ku dhagan yihiin kuleetiga oo deymaysan ayaad ku arkaysaa wuxuu qaab ka qaataa qaadku dhibaatada xagga inxiraafka iyo qalooca dadka dhalinyarta ah waxay ku fikirayaan inay wax dhacaan waxay ku fikirayaan inay xadaan meeqaad arki jirtay gabdhaha qaadka gado oo laga jeebsiibayo oo qaadkii lagala cararayo oo nin dee baahan oo qaadiraysan oo qaadkii hayo ilaan waa darooge wuxuu samaynayaa marka waxa ijraamka dilka xatooyada boobka ayuu qayb ka qaataa wuxuu qayb ka qaataa qaadku waxa la yiraahdo qoysku inuu kala furfurto oo kala baaba'o oo qoyskii khilaafaad baa ku iman wuxuugaaga yaraa ilaa hele odayga wuxuu rabaa inuu qaad ku gato haweenaydii way ka celinaysaa ilmihii way baahan yihiin tacliim bay u baahan yihiin شقاق يا خلاف بائما وقدام بيننا طلاق بائما ولذلك وحكى قيب قاني ريروه بربران أو أي بطان وحلا المها أبلا أنتي ونلجوين هو يدي سنجل مادر كايد أيو قيب كقادنا يا وحو قيب كقاتا قادكو وحلا إلى تعليمتا هو سيسية وحبرشادة أن تبرت لهين وجودة أن لهين تاسنا وحيكون معلن عاور دن قيلي بالله عليك بري أو إنها مران أي أو صلاة صباح أن تكنين محوطتك وشيء كرا أرضي النفتيس وحالي كجرا إنه قاد يسوي نرات سدو برقنكي صوك عيا أو يسوي نفتيس يسوي جلاس كي لجلو مادة كهر مرتي سدابو امتحان وباسية مركز تعليم توطن كاسنا وبربرية وحو قيب كقاتا قادكو إني نددكو جورسنين أو جورك لقطعه محاجرة نينكي ما أنت مركو كفكر إنه مردوف كي سي يبسدو وحما دغان كرا ما كبخي كرا إنه جورسدو لعق ما ودغ ميسا نينكا إساقا نين دروغة استعمال لعق ودغ ميسا مركا جور الآن ببلشدي أيو كسو بحيسا وحان نقون أيو كقيب قاتا فساد كبلشدة iyo waxa la yiraahdo rishwadu waa laaluushka in la qaato ninku markii uu waxan ku isticmaalo laaluush buu qaadan ka jidka taagan wuu qaadan ka wasaarad jooga wuu qaadan ka shurtada iyo baalkile booliski wuu qaadan marka waxay noqon inay dad wada qaadiraysan oo wada dhaafsada ummadoodii inay laaluush qaataan baa meesha ka soo baxaya waxaa ka qayb qaataa fisqiga iyo dunuubta iyo macaasida iyo ikhtilaadka isdhaxgalka rag iyo dumar isdhax cararaya oo wada qaylinaya fowdada inay wadanka ay ka bilaabato dowda iyo qaylada tirada badan wada arteen aswaaqda suuqa markuu soo galo qaadku qayladii ka bixi jirtay soo dhaciyay kanuu ka baxayay fulaan wadad iyaga dhan wada taagan oo kulligoodba wax miyir qaba aan lahayn ayaa ka soo baxay wuxuu ka qayb qaadan caruurtaadii inaad u noqoto dayasho xun aad u noqoto aabaha qaadka cuna ama sigaarka cabay ilmihiisina dhawaan way u soo gadayaan isoo gadbuleeya iyaguna wadada xun ayay lugta saarayaan miisaaniyadii iyo dakhligii ummadda ama fardi shakhsi ha noqdo ama dadweynaha oo dhan ha noqdo ama dawladda ha noqdo dadka ka shaqeeya ama sharikaadka ha noqdo waxay noqonayaan wuxoodii oo dhan dad baa soo beera iyagu ma cunaan way soo dheebgeynayaan kadib inaga shilinkeenii la qaadanaya haddaba intaasoo dhibaato marka sixada iyo caafimaadka waa qaybta ugu weyn oo qaybka uu ka qaado hadda waxaa soo cudurrada corona iyo balaayooyinkan socdo oo dhan qofka qaadka cunaya sigaarkii waa u nugul yihiin haddaba waxaan rabaa inaan soo jeediyo
qaadka haddii diyaaraduhu hadda way xiran yihiin haddii xitaa la furo inaan lagu soo celinin qaadka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay joojiso gobollada Soomaaliya mas'uuliyiinta jooga waxaan ka codsanaynaa inay joojiyaan dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan maamulada oo laga qayb qaato sidii loo joojin lahaa dadka danyarta ah oo ka shaqayn jiray inay sharikaadka iyo dadka ilaahay wax siiye muxsiniinta iyo dowladaha gobollaadka iyo dowladda dhexe intayba ha noqdaan inay dadka wax ay ugu tala galaan oo lagu furto waxyaabo yaryar meherada yaryar baa lagu furan karaa cooshada lagu furan karaa waxaa laga shaqayn karaa khudaartii raashinkii shaahi bay gabdhuhu gadi karaan meeshay ka shaqayn jireen qaadkii marka arrinta xitaa in la sameeyo oo culimada iyo dowladda iyo dadkan oo dhan isu tagay ay sameeyaan hay-ad zakooyinkii lagu ururiyo oo dadka masaakiinta iyadana bedel u noqoto ugu dambeynta waxaan rabaa inaan usoo jeediyo shukri wa taqdiir qaad la qabtay baan arkayay oo booliska Soomaaliyeed ay qabteen oo la soo qariyay oo boorsooyinka lagu soo qariyay inaan niraano waad ku mahadsantiin wasaaradda dawladda iyo hawada ninka la yiraahdo wasiir Omar oo kale si gaar ah runtii ugu mahad celinaynaa oo hawshaas iyaga qabtay oo ummadda u soo bandhigay shurtada iyo booliska Soomaaliyeed way ku mahadsan inay hawshaas iyaga qabtaan dadweynaha way ku mahadsan inta la shaqeysay hawshaas yaana lagu soo celinin hala joojiyo waa sun aan cunayna weeyaan waa lacagteeni iyo nolosheennina iyo caafimaadkeennina waa tegayaa dowladaha noo keenana aan hawsha nooma gelayaan ixsaan waa sun bay noo soo dhoofiyaan noloshayadina iyagaa qaata waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu